haquusan weliga hayso odhanin there's no way wax la yidhaahdaa ma jiro there is a way raadi fursadaha nololeed ha cabsan ee tijaabi oo riskiska qaado wax kastoo nolosha ka mida waxay yidhaahdaan cidda riskiga diidda yani dhibaatooyinka cidda ka baqataa horumarka ma gaadho walidaalka waxay yidhahdaan riskiga iyo profitku way wada socdaa soomaalidu maxay ku maamaahdaa barti yaqaan bari uma korodha bay yidhaahdaan waa yani waa niman challenge garaynaynin nolosha haddaad intaad taqaanuun ku warwareegtid waanad hore u soconin maaha waxay yidhahdaan guush waa laba shay oo la isku daro waa fursadda iyo diyaargarowga baa la yidhaha hadday fursaduhu ku hor yaalliin laakiin adigu aanad diyaar ahayn hore u socon maysid haddaad adigu diyaartay laakiin fursadda aad weydana socon maysid guushi bay yidhahdaan waa labadaasoo wada kulma waa inaad fursaddiina aad la kulantay adiguna aad diyaar u tahay oo qof muqaamaro gelaya oo ka faa'iidaynaya inaad tahay bay yidhaahdaan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam 13 sannadood bay quraysh iyo intii ku xeernayd diidanay 15 qabiil buu isu soo bandhigay inay aqbaleen oo diiday markii dambe dhalinyaro ansaari aqbashay that chance fursadda qule uu helay ayuu dawladda islaamku sameeyay saxaabadii si hijreeyay magaaladii u diray ducaad si hagaajisa dawladda dhan islaamiga dunida gadiday one chance uu helay isagoo 15 chances waayay fursad waayay hal chance uu helay buu ka faa'iiday idan qaa'idku bay yiraahdaan kow waa qof search for opportunities bay yiraahdaan waa qof raadinaya furaska raadinaya ka labaadna waxay yiraahdaan waa experiment and take the risk ayuha alhibba macnaheedu markaan leenahay fursad raadi waxay yiraahdaan waa fursad iyo muqaamaradu jarska xornimo ma hataan sheegayna yani ciyaaraha ay ku tilmaamaan laba ciyaarood idin sheego ninka jaska ciyaara muxuu sameeyaa soo jaska ma taqaanin shatranjka ciyaartan la yiraahdo jasku waa in go'an buu qof waliba marka hore deginshiyo laba degay sida shaxdeeno kale shaxdeena way ka horeysaa jasko iyadana waa godkana waa la degaa laakiin kan marka hore degintuuku uu qoray in go'an baa askartaadiya waxa ku yaalay guurista laakiin la guurayo qofku wuxuu ka fakaraa taa haddaad guurto maxaa jawaabtu noqos maxaa soo baxaya markaas waxa ku soo baxaya intaas oo probability ihtimaalaad tira badan askariga haddaad guurto kaasu guuri kara alternatives tira badan ihtimaalaad markaas waxaad isweydiinaysaa ka hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin ka kale hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kan hadduu guuro maxaa ka dhalan idan waxa chance jiro dhan baad xisaabinaysaa marka aad xisaabiso ayaad diiranaysaa inaad guurto laakiin garantii maaha inaad guulaysan doonto socanka ma in laga badiyo waa suurtagal idan liidarka dhabta ahi waa ninkaa cayaaraya maxay jas cayaaraya laakiin ma aha nin cayaaraya laadhuuda maxaa la sameeyaa waad ka quluxsiinaysaa una wixii ka soo boodaa hadday lixi kuu soo baxdana lixun baad guuri haddii laba ka soo baxdana maxay labaad guuri that means maskaxda maad isticmaalin waa ku dayba waa muqaamir marka muqaamaro ma rabno ee waxaanu rabnaa qof garanaya furaska baadi doonaya laakiin fursaddu markuu helo aanay dhaafaynin tijaabinaya hogaamiyaasha dunida la yaqaan xataa kuwa maadiga meelan waxba ka jirin bay wax ka dhaliyeen wadankan yar ee Hong Kong la yiraahdo waa taqaanay dunida dabadeedu ku yaalay marka loo eego bulsho iyo dhaqaale iyo wax walba dee dhulna waa 24 kilomitir maxaad u malaynaysaa wadan u baahday inuu ciidda soo dhoofsado ciidda guriga lagu dhiso Malaysia ka qaadan jiray aduu qiyaas wadan ciidana soo dhoofsanaya muxuu haystay wadanka ciidda soo dhoofsanayay maanta wuxuu ka mid yahay wadannada dunida ugu dhaqaalaha sarreeyo ku jira ugu horumarsan buu ku jira around 2,000 wax ku dhow oo technical schools buu leeyahay bay yiraahdaan qiyaas adigu isku wadan yar oo inta leeg nin qaa'ida 20 sanadood hogaamiyay oo cid walba dhaafay ra'iisul wasaarihiisu
waxaan filayaa shanta madaxweyne ama shanta nin ee dunida ugu mushahar badan ee madax wax maamusho ka mid yihiin waa waddan 24 kilometer square ah dhulku haystaa weeyaan waxay yidhaahdaan qaa'idku he should challenge waa inuu noqdaa qof nolosha challenge garaynaya qof isku dayaya inuu caqabaadka ka tallaabsado taa macnaheedu waxa weeyaan waa qof furas raadinaya ibxath can ilfuras xataa shirkaadka dhaqaale shirkaadka muqaamarada sameeya muqaamaro xisaabsan ayaa dhaqaaluhu kobcaan meel kastoo aan muqaamaro ka jirin profitku wan iyo meelahaas ku warwareega meelaha had iyo goor dagaaladu ka dhacaan iyo waxa ka dhacan waa riski midhan laakiin meelahaasi waxa laga yaabaa 50% inay gaadho ama 100% inay gaadho profitku walidaalku waxa dhaca riskiga iyo profitku way wada socdaan bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد أنا الظهرين dadkii soo qabanqaabiyey iyo dadkan tirada badan leh dhalinyarada xuduurka fiican leh intiinaba waa idin mahadnaqaya iyo gaar ahaan hotel guuleed oo caawa albaabadaba u xidheen labada albaaba waa xidhan yihiin yani hudheelkii ma shaqaynaya intiinan unbuu ayuu soo dhoweeyey sida cinwaanka hore u maqasheen su-aashaas ayaynu jawaab u daydayna waa kuma hogaamiye hoggaanku ama alqiyaada waxa af carabiga lagu yidhaahdo alqawdu naqiid الsawq bay yidhahdaan xoolaha qofna xagga dambuu ka kaxeeya qofna xagga horuu ka wada qiyaadadu waa cidda xagga hore ka wada ee hagaha u ah eraygu af soomaali ahaan af carabi ahaan af ingiriisi ahaan waxaad moodaa inuu macno kula tilmaamayo leadership iyo alqiyaada iyo af soomaaliga laftiisa oo ah hoggaamiye ama horseed ama garhwadeen waxaad tidhaahdaba waa isku wada macno ku dhodhow waa macnayaal dhammaantood isku dhodhow oo ah dad ama ummad ama koox ama guri wax kastaba ha ahaadee qofka garhwadeenka u ah terminologicalina ma ka gedisna macnaha lugawiga ah waa qof dad ama koox hoggaaminaya ila alhadaf yoolkii ama goolkii ama dantii iyo qasdigay lahaayeen ku wada af carabi ahaan weer yaroo kooban bay ku tilmaamaan qiyaadada ama leadershipku inuu yahay oo ah alqudra cala taxriiki الnaas naxwa alhadaf awoodda la awoodo in dadka loo dhaqaajiyo yoolka iyo goolka ay leeyihiin meesha ay u socdaan cumuuman markaynu idhaahna qaa'id dadka inta badan madaxiisa waxaa ku soo degdega hoggaanka guud ee ugu sarreeya political leaderka laakiin hoggaanku waa cid kasta oo dad hoggaamisa gurigu hoggaamiyuu leeyahay wanaaggiisa iyo mustaqbalkiisa iyo badhaadhihiisa khidada iyo u hor socda dugsigu hoggaamiyuu leeyahay iskuulku hoggaamiyuu leeyahay jaamacadda hoggaamiyay leedahay shirkadda dhaqaale hoggaamiyay leedahay waxay doontaba ha noqoto idan hoggaamintu waa in dad la hago oo ama hoggaamin dhaqaaleed ha noqoto ama mid maamil ha noqoto ama mid siyaasiya ha noqoto waxay doonaysaba ha noqotee haddaynu inta guud ama islaamku siduu u arko si kooban u tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina faray saddex qof hadday safar u baxaan inay mid hoggaamiye ka dhigtaan ama maamulo waa saddex qof oo safraya safarku waa wakhti yar buu qaataa waxay taasi tilmaamaysaa bini aadamku noloshiisa inaanu ka maarmin cid hagta xataa wuxuu nebigu leeyahay saddex dhul bannaan jooga uma bannaana ilaa iyo inay mid madax ka dhigtaana u haga mooyaane
haddii unuga ugu yari uu haga u baahan yahay unugta weyne bulshana waxa macruufa inay hagis u baahan tahay. haddaba su'aal baa taalla ay aqoon-yahanadu isweydiiyaan wakhtigan dambana leadershipku ama hoggaamintu waa takhasus cilmiya oo in badan la dhigo, waa takhasus nadariyaad badan leh. su'aalaha koowaad ee ugu muhiimsan ay isweydiiyaan waxaa ka mid ah hoggaamintu ma wax loo dhashaaba, ma fitriba, mise waa muktasab, waa wax la barto, ma xirfad loo tababartaba, mise waa abuur loo dhasho. markaynu su'aasha isweydiinayna waxa weeyaan hoggaamiyuhu ma qof intaynu tababarro aynu soo saarayno innaga hoggaamiye ka dhigayna, mise abuuro ahaan ayuu u dhashay oo abuurkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu u abuuray ayaa ah sifo leh dhaqan hoggaaminimo. weliba si kale haddaan u sii tilmaamo bini aadamka waxaa la yaqaanaa dhaqamadiisa dhammaantood wax badan oo ka mid ah akhlaaqiyaadkiisa iyo sifaadka bini aadamka wax badan oo ka midi wax loo dhasho weeyaan, wax badan oo ka midina waa wax la barto, waa wax qofka lagu tarayngareeyo. maalan dulqaadku waa loo dhashaa, dadku wuu kala dulqaad badan yahay, laakiin haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa innama alxilmu bitaxallum, waa wax la isbari karo, wa innama asabru bitasabur. in qofka bini aadamkii intuu mumaaraseeyo isku dayo inuu baran karo buu tilmaamaya. walidaalika baa qolada psychology-ga waxay tilmaamaan ama qolyahan leadershipka ka warramo oo dhammi waxay sheegaan, waxay yidhaahdaan the bell distribution. markay human behavior iyo dhaqamada qofka bini aadamka ka warramayaan waxay yidhaahdaan waxaa jira waxa la yidhaahdo bell distribution. belku waa sidan uu samaysan yahay jarasku, dawankan yare la garaaca siduu u samaysan yahay. oo waa maxay? waxay leeyihiin aadamaha sifaadka uu dhaqan ahaan u leeyahay waxay doontaba ha noqotee 1 to 2% 1 ilaa 2 waa wax loo dhasho. inta soo hadhay 96 ilaa 98 waa wax la baran karo. 1 ilaa 2 way adagtay in la bara bay leeyahay ama suurtagalka maaha. misaal ahaan qadiyadan aynu socono waxay leeyihiin dad abuur ahaan ayaa boqolkiiba 1 ilaa 2 ay u dhasheen inay qaada noqdaan. sifaadka qiyaadadu waa abuur ka mid ah oo rabbi uu ku abuuray. 1 ilaa 2na bay leeyihiin wax kasta haddaynu ku akhrino qaada kama dhigi karno, iyagana baabkaasi waa ka madow yahay. 96 ilaa 98 laga gaadhaya inta u dhaxaysaana waxay leeyihiin waa dad la tababari karo, qofba intay doonta ha u joogtay waa la tababari karaa ilaa iyo in laga dhigo qof qaa'ida inuu noqdo. xataa haddaynu taariikhdii islaamiga ka dib u milicsano nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabada badh buu ku yidhi weligiin waxa maamulina. qaarna markay soo islaameen maalmo kadibba maamul baa loo dhiibay. qaarka la yidhi weligiin waxa maamulina waa rag ka mid ah raggii ugu horreeyey islaamaha, مثلا أبي ذر وكله والصحابي صحابة واوين كمده نبي محمد وكنت المامي عليه الصلاة والسلام أصدق الله جينويه هذا وحل يري لا تأمرن على 2 لبول يا مدح ونقب نبي كون لبقف مدح ونقن إنها اللي تقرين عكس كذا ركبها مركز سوء إسلامين بين يري تشوجين بلودي بإمامه والصحابة دندقال قليي عمر بن عاصية خالد بن وليد ركم ذا معناه ماها خالد يا عمر
inay ka alla ka cabsi badnaayeen ama ka cilmi badnaayeen abidar waxa la filayaa intaba inuu abidar kana cilmi badnaa markay cilmi noqoto dadka lagu tirinaya inuu saxaabadii saabiqiintii hore u islaamayna u ahaa haddana nebigu wuxuu tilmaamay inaanu qaa'idin inaanu cid maamulin taa macnaheedu waxa weeyaan wadaad baan ahay oo cilmi sharciyaan leeyahay kuma dhaxal siinaysa inaad qaa'id noqoto wadaad baan ahay oo cilmi sharciyaan leeyahay oo sifaadkii qiyaadadana waan leeyahay ma kaa reebaysa inaad madax noqoto innaga laba daraf oo kale fog bay dadku inta badan taagan yihiin kooxda mala wadaadada ay wuxun bay rajaynayaan inay iyagu ka mudan yihiin qolada tan aan weysadoodu badnayn cagsigana qolyahan kale maamulada iyo waxay soo waday waxay u haystaan wadaadku inaanu xaq u lahayn wax maamulo bal wadaadka siyaasadda doonaya ayaa laga bilaabaya kaanama aanu qiyaadada isagoo xaq u lahayn idan waxaan leenahay sifaadka qiyaadadu haddii lagaa helo ama wadaada haw ama ha ahaanin waxaa suurtagala inaad qaa'id noqon karto inaad u dhalatay baa suurtagala sifaadka qiyaadada waxaa kaloo suurtagala inaad ka mid tahay bulsho weynta tababarka u baahan ee haddii la tababaro qaa'idka noqon karta ama hormoodka noqon karta 96-98% ka kale inaad ku jirto haddaba waxay yidhaahdaan qaa'idku مثلا جون ماكسويل وذات كريستانا ومنستر كنيسة يعني وشيخ كنيسة هجامية مسيحية إلى PhD جيسة مسيحي لماذا سيوحي لها المال الثيولوجي قد وقعطي لكن ما كيدا بين ليدرشيب كان يوحن رجع وحقه قرويا وبوقتي سقار كود وحيد هذا هل مليون كوبي بالليبسد يا وحلي وين ولاي leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. هجاميه وقف كجرنا يبغي وضده هجامين تقف جرنا يا كنا دقمية تكبر باكرة intelligent عقل بدن وح بدن جرنا يا لكن lazy أن يربط دوب قلين كريم ولذلك أرض الجامعات مثلا ممكن سوق بانو إن هذا higher degree أما percent سرقوا بحضان 90 above cream student إن هتاي A plus إن هتاي معناه هذا ما هي هجامية نقرس معناه هذا وحوي أنا هذا واحد بدن فهم يسو ولذلك بقى هيدا هذا سيو يد الدنيا ده مركز لا يقول إن بدنه كم دي وأرضي سي كوبحدة يدي يملها سي دي يدي سومل دم معها لكن واحد هو الرج هاردوير كاريسا وهذا شقو ومانيجرس ما هالليدر يسين بدنه كمدي مانيجر كي الليدر لماذا وكلا لبا معمولة يهجامية وكلا لبا وحيلين هجامية وانن وضد جرانية جد كوس عدا وانن جرانية ومر لبعض وانن كرتيدا أهله إنه جد كمره وان ليس هين ومر صدحاده وانن دت كتوسكره دت كبر باكرة صفات كي أقوماد له جد كوه عادية هاي كرتيدا لو وضد مريكره لكن مدمر له أن لبقف كحين كريم يعني إن نابغ طهي وعقل بدن طهي وكرتيب بدن طهي كمان لازمته إن هجامية نقل كريسة تصالح يعني كوح جابن هذا ضد دير لصعته حلقة يا با ماشي وحكار كيان ميل كفك أسم شكا قاضي إنه نكارك كرني كداري كون محاط كو أوران يسا كل أركي كريواي يوم ما أركان وحنا هذا كيسو إن قنعسو ديك حيسو iyo inaad tiraahdo war kuwan qaar wax garanay ma hadu mudlaysan labada midun bay noqonaysaa Soomaa hadaad kuwan qancin karto qaadi kartid oo kaxayn kartid hogaamiye tahay hadaad si dadkaaga qancin kari weydo
walow aad aqoontii iyo kartidii leedahay hogaamiye noqon kari maysid buu ku tilmaamaya. si kale haddaynu u tilmaamno marka waxay yidhaahdaan Alexander bay ka sheegaan, Alexander the Great-kii hore bay waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi waxaan ka cabsi qabaa kama cabsooda buu yidhi ciidan libaaxiya oo laxi hor socoto, laakiin waxay cabsi geliya buu yidhi ciidan laxa ah oo libaax hor socdo. yani wuxuu tilmaamayaa leadershipku muhiimadda uu leeyahay. Napoleonna eraykaa ku dhadhow bay ka sheegaan oo ah koox libaaxiya ah oo bakayle hogaaminaya naf ma laha buu leeyahay, waxaa naf leh koox bakaylayaal oo libaax hogaaminayo. yani labadan ninba waxa ay emphasize ka saarayaan, waxay qiimo weyn siinayaan leaderku bulshada halka uu jiro. haddii leader fiican uu bulshada helo inuu hogaamin karo. haddaba ma jiraa qayb muktasaba, qayb la barto? haddaynu nidhi waa jiri kartaa, ma jiri kartaa cagsigeena qayb fitriyo qofku ku dhasho? haa, nabigu calayhi salaatu wasalaam Ashaj Cabdilqays qabiilka nin ka tirsanaa ayaa uu nebigu wuxuu ku yidhi waxaad leedahay laba khaslo ama laba sifo oo ilaahay jecel yahay. waxa weeyaan buu nebigu yidhi alxilmu walanaa, waxaa tahay nin dulqaad badan oo kaadsiiye badan oo hubiya. waa laba sifo ammaana, qofku inuu dulqaadna yeesho, qof wax hubsanaya oo kaadsiiyelena u ahaado. wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ma laba sifoodoo ilaahay ugu abuurayba, ma waxaan dhalasho kula helayba, mise waa waxaan iktisaabay, waa waxaan kasbaday oo xoogsaday? wuxuu nebigu yidhi maya, waa laba lagugu abuuray. ilaahay baan mahadinayaa buu yidhi wuxuu jecel yahay waa abuuray. laakiin tajribadu iyo waayo aragnimadu way sii soofeeyaan wixii loo dhashay, oo sifaad kartiyo aad u dhalatay hadday tajribana gasho way sii qurux badnaataa. haddaba leadershipku siyaabo badan bay u eegaan. nadariyaad badan oo qoladan dambe ee cilmi baadhistooda nadariyaad kala gedisan bay leeyihin. qaar le duruufta abuura, qaar le bii'ada korisa, qaar le waa mawaaqif la qaato, qaar le waa wax loo dhasho, qaar le waa sifaat qof kastoo laga helaa uu leader noqon karo. qaar ilaa 8-9 nadariyadood oo kala nooca, theory kala jaada baa jira. مثلا nimanka aadka uga warrama waxaa ka mid ah John Adair nin la yidhaahdo. John Adair waa nin Ingiriis ah oo qoray buug la yidhaahdo Leadership of Muhammad. kontineeye buug waa leeyay, waa professor macruuf ku ah leadershipka, waa nin mudarrib ah. yani leadershipku maanta waxay ka dhigeen laba qaybood. qaybi waa waxa jaamacaadka lagu barto, qaybna waxay yidhaahdaan waa tadriib, waa tababar, waa training. coach baa jira markaa dadka train gareeya oo maamulanimada u train gareeya. shirkadka waaweyn, wasaaradaha, dawladaha, waxaasoo dhammi waxay qaataan tababar ah leadership. ninkani wuxuu ka mid yahay tababarayaasha dunida ugu waaweyn, ilaa 1 milyan oo qof baa tababarkiisa ka baxay. dadyaga gaarka u tababaro waxaa ka mid ah United Nationka maamulkooda oo dhan. jaamacaddoodan Turina ku taalla waa professorka maamulka iyo leadershipka u qaabilsan. buug buu qoray uu kaga warramayo nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo liidernimadiisii, qiyaadadiisii. laba wax baa kala jira inaynu nabi Muxamed rasuulnimadiisa ka warranno, rasuul ilaahay soo diray inuu yahay, iyo inaynu ka warranno cabqarinimadii uu dhashay ee sheegaysa sifaadka qiyaadiga uu leeyahay. ninka kale wuxuu tilmaamayaa sifaadka uu leeyahay nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam ee tilmaamaysa inuu hogaamiyey. nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhda bini aadamka hogaamiyaashii soo maray waa hogaamiye ugu weyn baynu odhan karnaa inta taariikhda qoran aynu hayno. waayo one field, hal takhasus hogaamiye kuma ahayn. hogaamiye siyaasadeed,
وحاها هجامية الدخالات وحاها هجامية أمد أمام ضيس سمية أمد جبي جدبا وحاها هجامية يالصوص عاري يعني جانب كستون رشي سلقة هرمود بوها نبي عليه الصلاة والسلام وحلية هي مركو تلماما يا قيادة نبي وحا وكو تلماما يا أول الصفات وشيء وحا كمد بولاي صفة الراعي صفة حول تشرنمو لها بولاي حول تشركة إيام حاسكة قحلا وحورنا إياه a good sheep herd guides his sheep ninka xoola dhaqaha qowsaarka ahi xoolaha uu raaco wuu ilaaliyaa wuu ururiyaa walfeerkooda iyo wanaagoodu ka fakara waxa iyaga dan ugu jirtuu yeelaa yani ninka maalan adhi raacaya waa u sahamiyaa meel doog lu geeyaa waa ururiyaa bahalkuu ka celiyaa midhmidh buu kala yaqaanaa teeda liidatuu iyo teeda qodaxdu muddo iyo tu kastuu garanayaa mid waliba waxay u baahantahay buu garanayaa waa qof danta xoolahaasi ay leeyihiin si fiican u ilaalinaya wuxuu leeyahay qaa'idka dhabta ahi ama horseedaha dhabka ama haliyeyga dhabka ama hogaamiyaha dhabka ahi waa ninka sida xoolaha loo raaco bulshadiisa u raaca buu leeyahay نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حديث كين وضع نقام بيقول ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متكستويد كمدي وحول شري والراع وقف على الراعيين قف لمن يوح مسؤول كيه عدي للراعيين إمام قبول يوح مسؤول كيه ومدى للراعيين إلى يوسف قارسيا نبي قرية وضيق مسؤول كاه وضيق قداشي qofka dumara mas'uulka ah carruurtiya inta soo hadhay qof walbana aakhira waxa la raaciyo waa la weydiinaya nabiguna alayhi salaatu wasalaam waa ka xadiis kale ku tilmaamay ma min nabiyyin illa waqad ra'a al-ghanam anbiyada isagoo ilaahay hormoodnimada u tababaraya bini aadamka ayuu nabigu wuxuu leeyahay nabi ma jiro ilaa iyo xool u soo raacay ari baa la raaciyay anbiyadoo dhan buu nabigu tilmaamaya hatta adiguna ma raacday bay yidhaahdeen rasuulkiisiyo حتى أنقنا وان راعبنا المشيغي وقف بولي هي دتكي سوى حلقة بصدا دبتنا وحطوا صالة وصوق عطرية قصة سواد بن غزية سواد بن غزية حالة الماما دقال كي بدر مركي ونبي قدتك السفة يبو ننكو يري سوى بحسن صفك السفي عنه قل دبتنا وشو كمودي وحيد إلهي رسولك سيواد وحباد ياش مركا وحان رباينا كاق وسطو نبي عليه الصلاة والسلام انتو مرضى على شيء غادو يلقوا وسط دبتنا نبي قولون كذا وحبك مو قوصنين مركا نكان قالت وحوق ضيادا ندليشانية سيدا ولدق مو قائدك بالشديسة حديث الباني كنت الماميين حسن يهي إذن قائدك النموذج يقول قائدك تصالاهي وقائد وانين تواضع بدن اما يسدلك بدن سوينين يسكبرين كجيرين اسلام markaana umadiisu ay ixtiraam u hayso waa qof aragti leh oo aragtidana dadka ka dhaadhicin kara u taagan dadka uu hogaaminayo khidmadooda iyo waxtarkooda ilaahay quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nabiyullaahi muhammad laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana ودايشة في عم بايدين كسوغان إلهي الرسول كيس قائد بويدين آياتنا وحي سودك غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب و critical problem مسلمين تغبصوا دوني دوران باي سقوطك تاي وحي أغاقار كودة دقنا قريش لها عربتي كالي الربادية لهاي قبائل واوين وكلا غطفان يقوى سله يهود سدح قبيل وكترسان له ضد بدن باي سوتغي مسلم كورنا وكونوا قفا وحان صدح وما كبضنينو مدينة دقن إن مرضبك الله صاروا مشكلة دائية النبي قصيدو حللي وإنه تاريخ دائم بدن وضع مقالي صحابة الله تشادي قوانا يقاتل مركيدا بيني قد مقالة بكسو وريتشيان قيب تبنان دقال كاس ودرين ديري النبي عليه الصلاة والسلام صحابة كلا قيب قلي قد كلا قضي عيد الله قوري وحوال بالله قبطي markii dambe
politically isku dayeen kooxahan ka soo horjeeday inay kala jabiyey dagaalkaas sidoo uu maamulay baa Ilaahay wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana Ilaahay rasuulkiisa waxa idinku sugan ku dayasho fiican baa Ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala liman kana yarju Allah wal yawmal aakhir wa dhakara Allah kathiira haddaba John Adir isagu wuxuu ku tilmaamayaa sifadaasi raaciga ama xoolo jirnimada iyo sifada inuu yahay tusaale lagu dayan karo oo isagu wuxuu odhanaya diiwaaniyadiisii meeshii goobtiisa xafiiseed albaabadu way u firaayeen buulayo dadkoo dhammi way soo galayeen oo cid nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka ka celiso ka teeday askariya waxba toona ma wadanin wuxuu kaloo lahaa buulayo ru'ya vision iyo tawjiih hanuunin uu dadka hanuunin karayo dib baan wax ka tilmaami doonaa aan se soo qaato laba professor ama laba aqoon-yahan oo Maraykan ah ninkan hore Ingiriis buu ahaa mid Posner baa la yiraahdaa midna Cousins baa la yiraahdaa Jim Cousins iyo Barry Posner waa laba nin oo takhasuska leadership-ka leh waa laba nin oo ka mid ah dadka wax tababara waa laba nin oo jariidadan مثلا Human Resource Magazine Barry Posner waxay ku tilmaamaysaa inuu yahay 20 nin oo ka mid yahay dunida human resource thinkerska ugu influential ama ugu saamaynta badan inuu ka mid yahay waa laba nin oo lagu tilmaamo coachingkoodu 50 nin ee ugu coachnimo fiican tababarka qiyaadaadka ama leadershipka la tababaro inay ka mid yihiin waxay qoreen book la yiraahdo The Leadership Challenge waa book award winning ah jaayisaad ay ku qaateen abaalmarin ay ku heleen waa book ka mid ah best selling leadership bookska waqti ugu fiican ee la iibsaday ay waxay yiraahdaan over 2 million copies baa laga daabacay ama se la iibsaday book takhasus ah inta badan buugta sheekooyinka iyo riwaayadaha iyo bulshada oo dhammi buugta akhrido ayaa malaayiin laga iibsadaa laakiin buugta takhasusaadka ku saabsan takhasusku doonaha noqdo buugta takhasusaadka ku saabsan dad go'an baa barta inta badan waxa daneeya dadka shaqada haya ama fieldkaas arday u ah laakiin buug noocaas oo kale inuu over 2 million copies la daabaco waxay tilmaamaysaa qiimaynta uu ku leeyahay bulshada dhexdeeda si kale waxay u tilmaamaan inuu ka mid yahay abidba boqolka buuga business ku saabsan mid ka mid ah 10ka buuga ugu sareeya ku saabsan bay dhaaheen leadership buu ka mid yahay buuga kani waa research waa field research baaritaan sodomeeyo sano socday oo ay sameynayeen labadan professor way aadanaha baadhayeen iyo maamulayaasha iyo madaxweynayaasha iyo dadka uu hogaamiyay ay baadhayeen waxay ku tilmaamayaan waxay bilaabeen baadhistooda tan 1982 editionkii koowaadna waxay daabaceen 1987 editionkiisii shanaad 25 years later bay daabaceen 2007 2002 alif baa haddana la daabacay soom duuduub buugga kani wuxuu ka mid yahay buugaagta aadka loo ictimaado isla markaana waa labada nin leh LBI-ga lagu qiyaasaba leadership-ka LBI-gu waa waxaanay ku tilmaamaan leadership practices inventory waa tool 360 assessment ama questionnaire ka samaysan oo ka mid ah tuulasha ugu fiican ee loo adeegsado baaritaanka liidarrada markay baadi doonayaan tuulalka loo adeegsado tuulasha ugu fiican mid ka mid ah bay leeyihiin baaritaankan markay wadeen ilaa 3 milyan oo qof bay interview ka qaadeen ilaa 3 milyan oo qof waxay dhahan 75,000 oo qoraal baa soo gaadhay way waraysiga ka qaadeen oo qudhamaahe qoraalada tuulashoodii loo buuxiyay waxa soo gaadhay 75,000 oo qoraal nimankani waxay rabeen inay baadi doonaan dhaqan hogaamiyeedku hogaamiye iyagu waxay ka mid yihiin inta badan qaybta rumaysan wax la bartay inuu yahay waxay ka waramayaan dhaqanka hogaamiyuhu waa kuma fiican ee ummad guul gaarsiin kara
dadyawgii tirada badnaa ay waraysanayeen waraysiyadoodii waxa uga soo baxay dadka waxa la weydiinayaa yaad jeclaan lahayd inuu hogaamiyahaaga noqdo hogaamiyahaaga inuu sifaadkee yeeshaa baad jeclaan lahayd bulshada dunida ku nool xataa ilaa 1500 oo mudiir CEO dad maamulayaal sharakaadka waaweyn iyo waxa hogaamiye ah ayaa ka mid ah dadka ay questionnaire-ka weydiinayeen idan bini aadamka waxay warsanayaan maxaad jeceshay inuu hogaamiyahaagu noqdo inuu sifaadkee yeesho qofka maxay ah ayaad ku qanacsantay inuu hogaamiyahaaga yahay waxa jira markaa wax ka mid ah traits sifaadka bini aadamku uu leeyahay iyo wax ka mid ah practices mumaarasaadka la baran karo oo labadaba ay dadku tilmaameen sifaadka ay dadku tilmaameen ee ugu horeeya waxa ka mid ah honesty sifada ugu badan ee la tilmaamay waa al-amaana daacadnimo waxaanu jecel lahay liidarkayagu ama hogaamiyahayagu inuu daacad noqdo inuu honest noqdo inuu aamin noqdo sifada labaad ay tilmaameen ee ugu badan waa competence kifaa hawkarnimo aqoon shaqeed inuu leeyahay sifada saddexaad ay tilmaameen waa forward looking or forward thinking qof mustaqbalka ka arki kara qof aan gomadiisa iyo intan ku xeeran un la aqli ahayn qof sahamin kara mustaqbalka ummadiya meesha u socota arki kara dadka badh baan aragtidoodu dhaafin inaga marka la joogo waa reeraha iyo intan ku wareegsanaya inaanu meel durugsan aan wax ka arki karin nimankii 3 milyan ee qof ay ka qaadayeen kuwa shineerkaasi u dhiibayeen LBI-gooda ay wax ku weydiinayeen natiijadii u soo baxday waxa ka mid ah cidda dadku ay rabaan inuu qaa'id noqdo sifaadka ay ka rabaan waxay ugu horeysiinayaan inuu yahay honesty daacad qof aamina qof mukhlisa quraankana in badan baa ku aragteen masaladaas oo laga warramayo questionnaire-kii markaa 5 qodob baa ka soo baxay oo koowaad waa from 1987 to 2012 waxay ururinayeen statistics-kaas buuggooda 3 goor bay jadwal ku qoran buuggu waa ilaa 350 page 3 jadwal oo kala nooc baa ku qoran mid ay 1987 markii koowaad ay dhishagii koowaad ay buugga soo saareen ku ka mid ah mid ay 2007 soo saareen iyo mid ay 2012 soo saareen intaaba waa questionnaire-kii ay dadka la daba socdeen waxa uga soo baxay sifada koowaad ay dadku ka rabaan qaa'idkoodu inuu yeesho waxa weeyaan inuu honesty qof daacad inuu yahay qof aamin inuu yahay sifada labaad ay ka rabaan waa vision qof aragti leh inuu yahay ru'ya meesha loo socdo waa gadhwadeene xaggu dadka ku wado qof ay u muuqato inuu yahay sifada saddexaad ay tilmaameen waa inspiring qof dadka u waxyoon kara ama ilhaamin kara ama guubaabin kara dadka waxa uu la rabo gaadhsiin kara sifada afraad ay tilmaamayeen waa competence kafaa hawlkarnimo qof leh inuu yahay shaqada qof gudan kara inuu yahay sifada shanaad ay tilmaameen dadku ee ugu badani waa adhakaa wa nubuu intelligence inuu intelligent yahay qof caqli badan inuu yahay shantaas sifo waxay leeyihiin dadkii public ahaa ee 3 milyan ee qof waxa u batay sifaadka ugu badan ee ay ka rabaan qaa'idkoodu inuu yeesho waa ka ama ha noqdo wax uu dhashay ama wax loo train garay ha noqdo laakiin akhiran waa inay noqotaa sifa nafsiya khuluq akhlaaq dhaqana uu leeyahay waa inay noqotaa inuu qof aaminayay
qof aragti leh inuu yahay qof karti leh inuu yahay qof intelligent inuu yahay qof inspiration samayn kara dadka kicin kara ama hawlgelin kara ama ra'yigiisa qancin kara oo gudbin kara inuu yahay su'aalaha waxay kala weydiiyeen 1500 oo mudiir leaderski ama managerski dunida hogaaminaya 1500 ka mid ah ayay su'aalahan weydiinayeen waxay weydiinayaan markaa su'aalo ku saabsan hogaamiyaha rabi lahaydeen muxuu yahay waxyaabo badan oo kala gedisan bay sheegeen markaa dabeeta markii dambe iyaga waxay u qoreen sifaat waxay kuwina ka kaalaya liiska akhriya nin walba maxaad u horeysiin lahayd sifada koowaad aad ka rabta hogaamiyahaagu muxuu yahay sifada ugu sarreysa dhammaantood ay tilmaameen maamulayaashii caalamkee la yaqaanay waxay leeyihiin waa credibility waa mistaaqiya kalsooni in qofka lagu qabi karo qofka in kalsooni lagu qabi karo iyaga laftooda waxay qoreen bug la yiraahdo credibility how leaders gain and lose it bug ay u bixiyeen bay qoreen qofku in lagu kalsoonaada qayd aarad ku kalsoonayna hadduu ku hogaaminayo wuxuu sheegayaana ka dhaadhici maaya xaqu ku wadana xataa hadday sax tahay ma rumaysnid haddaanad rumaysnayna dee taageeri maysid inagu waxa ugu badan haddii dadka la sii dacaayadeeyo oo la sii maago oo shaadhka laga sii siibo oo kalsoonidaad dhulka gelinaysa hadday kalsoonidu dhulka gasho he can lead ma hogaamin kara dadka markaa waxay tilmaamayaan hogaamiyuhu waxyaabaha ugu weyn aanu ka rabnaa bay leeyihiin waa inuu noqdo qof kalsooni lagu qabo waxay leeyihiin kalsoonida maxaa sameeya hogaamiye lagu kalsoon yahay oo dadku raciyadiisu ka dambayso inuu noqdo maxaa sababa waxay dhahaan laba shay haddii laga helo kalsoonidaasi meeshay taalla waa maxay labada shay waa truth telling bay yidhaahdeen inuu run sheegayo qof run sheega inuu yahay waan been lagu baran hogaamiyuhu hadduu maalin walba intuu khudbadayo dadka been u sheego oo shalay kii uu sheegay haddana berrito ay been kala noqoto oo haddana maalinta dambe uu khudbadayo oo been kala sheego waxay leeyihiin marada ka dhacaysa wuu qaawismaya mara ka dhicistu waxa weeyaan dee kalsoonidaadii baanu helaynin therefore he can lead you kuma hogaamin karo muxuu noqonayaa haddaanu ku hogaamin karaynin wuxuu noqonayaa John Maxwell ninkii la odhan jiray horey ku soo tilmaamay baa wuxuu leeyahay bug la yiraahdo the 5 levels of the leadership shanta hierarchy leadership uu leeyahay shampi wax la yiraahdo isticmaala wuxuu leeyahay heerka koowaad waxa la yiraahdaa position buu yiri positionku waa maxay right to lead isagu inuu ku hogaamiyo xaq buu helay yani kursiga de maamulku helo uu fadhiyaa adiguna waa maxay waxaad u daba socotaa you have to ubulay wax kale aad qabataanad haynin waad ku qasbantay natiijada ka dhalanaysa maxay tahay buu leeyahay waxa ka dhalanaysa buu yiri the minimum energy iyo the minimum effort inaad bixiso inta ugu yare tahillatul qasamuna shaqaalaha iyo wasiirada iyo dawladda iyo dadka inta ugu yare aanay ku dambaabaynin bay la imanayaan idan waxa koowaad laga rabaa bay leeyihiin qaa'idku waa kalsooni waa credibility waa mistaaqiya mistaaqiyadaasi waxay ku imanaysaa bay leeyihiin inuu qof run sheegaya yahay iyo trustworthy qof aamina nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaalada ka qaaday intaanu rasuulka noqonin maxay carabi u taqaanaa الصادق الأمين that means credibility ببلشديسا كل حلا مستاقية دي بولها لبضن نين بحثي جاي كون يشنت بقول مدير سوي دي وحويان قفك هدي للربو إنه leader نقضه شيء كوادا نقربنا بيلي وcredibility ومستاقية مستاقية ده سوى حيكون إيمان يسابي لي إنه قف رون شيء جاي هاي
نبينا عليه الصلاة والسلام وحين ليه صدح آخره إلهي ما لنت قيامها ما طاهر ياله وما إيغه وعذاب كل البيلي صدح عقابات بالله شيء ما لنت قيامه يعني صدح قروب ولا لا يزكيهم إلهي ما طهره ولا ينظر إليهم ما إيغه إلنا حريسكم ما إيغه عذاب كلنا وإليه صدح ذا تنوام حي وصدح وحا مدول بوحي لقفي لي وحانا هين لوحيو مدي وحو النبي يقول وشيخ زان oday weynoo zinaysanaya nin weyne xalaasha abuu taaglaaya hadduu zina u sii kaco dee waa meel daran idan sheekh waa yacni qof sinni weyna qof da'ah oo haddana zinaysanaya waa cebadoon ka labaad wuxuu nebigu ku tilmaamay waa malikun kadaab boqor ama madax beenaala ah trustalinkii baa laga laayay nin madaxa oo beenaalanimo dadku ay ku bartaan iyana wuxuu leeyahay saddexdan qiyaamaha baladu ku dhacayso ka mid yahay ka saddexaadna wuxuu nebigu yidhi waa caa'ilun mustakbir wax ma hayste haddana kibray bini aadamka kallaa ina alinsaana la yatqaa an ra'aahu istaghnaa baa ilahay yidhi bini aadamku wuxuu qooqaa markuu ama sulto helo ama lacag helo ama markuu dee dabaqada sare ku biiro ayaa laga yaabaa inuu kibro laakiin mid aan waxba haysanin hadduu kibirka bilaabo dee wax looga fadhiyey maaha haddaba qaa'idku si uu noqdo qof lagu dayan karo qudwa si uu noqdo waa inuu credibility yeeshaa credibilityguna wuxuu ku salaysan yahay alsidqu waalaamaana qof run sheegaya oo amiin ah waa inuu yahay walidaalika baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wuxuu shaqo u diray rabbiyo dham inay ammaanadaa lahaayeen malakul jibriil iyo rusushii loo soo waxyoonayay rasuul walba qur-aanka muxuu ku leeyahay innii lakum rasuulun amiin ammaanu sheeganaya nazala bihi ruuxu lamiin mutaacin thama amiin jibriil baa ilaahay ammaano ku tilmaamaya nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu leeyahay alaa ta'manuuni وارميد أنا آمنين وأنا آمن من في السماء إذا رب السماوات وحي يقول آمنين ميدا ندخل يا آمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا خطبته والنبي تشهدين تري أنس بن مالك بقول النبي خطبتنا ما تشهدين إلا ويرى ترى خطبة النبي كتيرة محكم إذا لا إيمان لمن أمانة له إيمان ما لنا ما يسترن عند أنا أمانة لهين ولا دين لمن لا عهد له ديننا ما لقف كان بلن لهين هذا واحد لنا هاي وحي أينو شيئا بحث علمي يكون قاردين ووحي دينتنا ينو شيئا وقائد كأنه نكربنا إنه نقضى قف أمينة إنه نكور ربنا إنه قف كفاءة ليه وحلقة يبينه أمين نقضى لكن أنه كفاءة لهي من وداد الدورسون وحاران تسكى إلى لنا يودك حقوق ذا كحد بين وحبا عنينين لكن أنا لهين هول كرنمدي اللي وجبهنا قيادته وبهنا عكس هو دعكرة متكفاءة بدن إنه هلا لكن توجه وليبا نبت واحد تاجنت مالا وحبا أولين مركو تو كان نقضد مركب وين يسكون دقيقة واحد هذا هبر نرويجيا واحد تري ان corruption كو إذن كو قرا إذن ما هيستبيت لي يوروبا مدحدو دبيت لي وcorrupted وهذا توجه لكن واحد تري أنا حاجة يجا كيجا وين وقف بدنا عبوك عنا جعمال الإسلام سوى قالوا إذن كسبيت لي كيجا يرو مركم من القادة كلا بعد درب يكون دقيقة مركوا هذه وحلا هيانا يريين ولو كفاءة لهاي كفاءة بالها وتوجه ما قدرتهم ده مركب قادة وبس واسكو مررنا حبك صهاري مايا إذا وحنا لنا هاي قائد كأنه رادينينا كل لبدن صفة وينو يشاء وينو أمانة يشاء إلى حد ما كلبادنا وينو كفاءة يشاء وف مسؤولية دن قاضي كروح معمول كراه وينو يهي وينو لا يهي بين لنا credibility مستاقية إنو لا كلسوني دتكو إنه يكون قبان
inay dadku kalsooni ku qabaan waxa abuura baynu leenahay ammaanada iyo truth telling bay leeyihiin nimanka kale inuu aamin yahay iyo inuu saadiq yahay inuu run sheegayo haddaba haddii aynu weyno 2% ama 1% qaa'idka rasmiga ah xataa kuwa kale waa jafjafi karnaa haddii laakiin ay noqdaan dad wax baranaya haddii ay noqdaan maxay dad wax baranaya walidaalika bay nimanka kani ee buuggooda waxay ku soo bandhigayaan 5 qodob waa ay leeyihiin waa practices waa mumaarasaat waa dhaqamo qofku isbari karo hadduu dhaqankaa la yimaado bay leeyihiin leader buu noqon karaa walow aanad markii hore ka mid ahayn kuwii lagu manaystay u dhashay aad ka mid tahay 96 up to 98 kii kale aynu sheegaynin laakiin ogsoonow dee belku jelasku siduu u samaysay haddii 2% ay xaggana 2% tahay waa loo sii kala dhowiyay 2%ka u dhashay iyo 2% kaan u dhalan labada waa loo dhowiyay dayla bahalku waa circle dheer oo sidaa sare u soo samaysan dad baa jira haddaynu in yar ku kabno markiiba qaadan noqon karaya hogaamiyaal fiican noqon karaya laakiin waa inay noqdaan dad training iyo waxbarashada iyo kobcinta u diyaara maxay ku tilmaameen waxay leeyihiin waxa uu u baahan yahay qof kasta oo cid hogaamiya hadda hogaaminta waxaa ka mid ah shirkadkan dhaqaale kuwa hogaaminaya ha noqdo shirkadkeena xawaaladaha kuweena kan telecommunicationka kuweena kan tijaarada kuweena kan ilayaba waxay u baahan yihiin leaders inay noqdaan dadka hor socda waxaynu u baahannahay hadday leaders noqdaan dhaqaalaha waddankaa si fiican u kobcaya waxaynu u baahannahay kuweena siyaasiyiinta inay leaders noqdaan ninka sare oo qura maaha waa maca kuwa ka hooseeya wasiirada agaasimayaasha maamulayaasha maareeyayaasha waxaan oo dhan waxaynu u baahannahay wasaaraddeena waxbarashada macallimiinta principaliska dadkan waxaan oo dhan waxaynu u baahannahay nolosha bulshada aynu ku noolahay oo dhan haddii ay inugu yaraadaan maba yara horta 1% oo boqolkii kunba dee 1,000 oo qaa'ida ku jira ama 2,000 oo qaa'id oo abuur ahaan u dhashay laakiin hadda dhowr iyo 90 kale laftooda aynu tababari karnaa haddaynu ku talagalno inaynu wax baranno 5 sifo ay leeyihiin haddii la baro 5 sifo mid waliba 2 shay bay commitments bay yidhaahdaan 10 commitments iyo 5 practices bay ku tilmaamaan 2 commitment haddaad la timaado halka suluuka loo baahan yahay waad la timi bay leeyihiin ka koowaad waxay yidhaahdaan waa model the way bay yidhaahdaan model the way macnaheedu waa maxay waa tusaale noqo haddaad hoggaan meel u hayso tusaale noqo waxay yidhaahdaan your deeds afcaashaada ayaa ka cod dheer hadalkaaga bay yidhaahdaan dhaqankaaga maanta o dhan idin khudbadayo yidhaahdo ummadda waxeeda waa inaan la cunin ummadda waxeeda waa in la ilaaliyaa dabeetana ay aragtaan anigoo haddana ku xambaaran 2 guri iyo waxoogaa kale dee waxba dhegaysan maysaan socankaa maaha waxay yidhahdaan ficilkaaga ka cod dheer maxay odhahdaada haddaad rabto markaa bay leeyihiin in lagu aqbalo aad leader noqoto sifada koowaad aanu kaa rabna waxa weeyaan ama mumaarasada koowaad aanu kaa rabna waa model the way bay leeyihiin inaad namuudaj noqoto tusaale inaad noqoto macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihiin in ficiladaadu ay ka cod dheer yihiin maxay warkaaga tacbiir ka qoto dheer kaas bay leeyihiin waxay yidhaahdaan if you don't believe in the messenger you don't believe the message bay yidhaahdaan if you don't believe in the messenger rasuulka haddaanad rumaysanayn warkuu sida miyaad rumaynaysaa haddaad tidhaahdo rasuul maaha qofkaasi ama mid laguu soo diray adlada cidi kuma soo dirin mar rumaysid in laguu soo dirayba mar haddaanad rumaysanayn in kii la soo diray uu yahay miyaad ka dhegaysanaysaa markaa warkuu sido idan waxay leeyihiin qofka inaad rumaysaaba waxay ka horraysaa inaad rumayso maxay ballanqaadyadiisa iyo dee hadalkiisa iyo khudbadihiisa inaad rumayso kaasaa ka horreeya haddii bay leeyihiin
وقفكو نموذج نقضه تصالح هدو نقضه برشد وهقامينيو محا صوب حيا respect and credibility بهلا بيلين سبنا برشد هو احترام يسا وانا كلسوني دو درا ويسيني هدو يساقو صفات يا شبيلين برشدو they respect him ويحترام يا credibility مستاقينا ويسيني كلسوني دو درا ويسيني haddaba sidaad namuudaj u noqon kartaa saa tusaale u noqon kartaa laba commitment ha laga helo bay dhaahdeen commitmentka koowaad waa inaad value leedahay qiyam akhlaaqiyad iyo dhaqan waa inaad leedahay oo bulshada aad u sheegaysaa values inaad wado nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa inama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq dhaqan fiicnida inaan dhammaystiraa la soo diray qiyamka iyo value-ga daacadnimo leh kalsooni leh run sheeg leh ammaano leh qiyamka waa inaad barabagayd garaynaysaa waa inaad faafinaysaa ka labaadna waxay yidhaahdaan waa sadda example adigu waa inaad tusaale noqotaa labada commitment haddaad qaadato bay yidhaahdaan waad noqonaysaa maxay model dawaygi waad noqonaysaa hogaamiyihii ama tusaalihii waad noqonaysaa waxa ay leeyihiin إلهي القرآن كوحينا وقتل المامية إن بدن رب السماوات والأرض بوحين لي يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلهينا ما أرانا وقل الظلم جها سميننا سأينو إيا لينا إن الظلم السمين با إلهي وحينا يلي أنا جا إسكام ممنوعين الظلم السمين أنا جا أي إسكام ممنوعين إن الظلم السمين هذا بقى يدوك الظلم هالسمينين أبو أيو ربينات المامية معنى يدو حويا منك مضحضة هدانو يساقوا نقونينك وح ظلمينية هدانو نقونينك وحضية هدانو نقونينك بنت شيقي هدو يساقوا تصالح النقضة دادكو نكل سونيدو دي سيني ينوانا احترامية إلهي القرآن كاللبا قوربو إرقا مقتع وعرض هذا كو شيقي وقورمية قورمة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ورددوا محا مؤمنوا بإلى هيري محا أورانيسا وحيدا صبينني بين الشيقين بالين ليه وحاد شيقيسا هنقضى وحاد أدوه سميسي بإلى هيري وحاد شيقيسا هنقضى محي وحاد أدوه سميسي سأوجد النبي عليه الصلاة والسلام حولها إن النبي محمد هدي وحدب النبي يقول عنها عن شرنا يعني قري جيجا كبلابي لها فاملي جيجا أيان قانونكم مركو هركو فولين لها ضدكم مركا ويقبل أيان قانونكم ينو فلو بدحوينو هدو قيس كيس كفولي قانونك أنت كدم بيسا ممورا باكا تاغاني لغو فولين إذن ليدر وينو نوع عن نغضا قرآن كإلهي وحينو قاقور رمي حوار نحمري نبي الله إبراهيم يا رب السماوات والأرض نبي إبراهيم با إلهي وحيوان امتحان بانقلي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن با إلهي امتحان كي وكوكو ليستي نبي إبراهيم لا يتحامي مركو نبي إبراهيم امتحان كي كصوبحي أيا إلهي وحكولي إني جاعلك للناس إماما ضد كان مضحكا قد قيا إمام قفل رد يده أيا ضدك ونقونيس نبي إبراهيم وحج على استي ليش يصدمنين استدا سوق على نقطة قال ومن ذريتي بولي إله وأنت عند علينا إلهي وجوابه وحلوولي لا ينال عهد الظالمين بإلهي ولو نبينا حد عليه أنا قبل لك يقول ما قاعد أنت ظلمك سمي سبا إلهي لي سبحانه وتعالى إذا قفكوا هدو نموذج تصالح هدو نقوم وايو وبراكتس لسميه بيلين وتدريب لتببري كرا عند مدح نقونيسا oo lagu tababari karo inay dad value la noqdaan example na inay iyagu value ku noqdaan kadib bulshadu ixtiraam iyo kalsooni bay u haynaysaa warkoodana waa la aqbalaya sawgeed baa ilaahay anbiyadii sifaadka lahayd ayaa nabi maxamed maxaa lagu yiri ulaa'ika alladina hada allah fabihudahum iqtadih baa ilaahay kuwaasi waa kuwii alla hanuuniyay ee jidka raacay hanuunkooda ku dayaba ilaahay
iyagu waxay eray bay soo koobanaa DWS yani erayada ugu horeeya jumladda tan bay soo qaataan ay yidhaahdaan waa waxaan rabno do what you say you will do bay yidhaahdaan senteniskaasay inta eraya ugu horeeya intay soo qaadaan ayay cinwaan uga dhigaan meesha tan wixii aad tidhi waan samaynayaa samee bay leeyihin nabiyullaahi shucayb muxuu yidhi markuu dadka la hadlay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma istatactu wamaa tawfiiqii ila billah calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib mar raba buu yidhi waxaan idinka reebay inaan anigu idiin weydaarto yacni anaa ah exambleka iyo modelka anaa idiin ahaanaya buu leeyahy waxaan raadinayaa waa islaax iyo wanaag intaan awoodo waxay yidhaahdaan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu qaadada soo saarayay waxa uu isticmaalay wax kasta oo ummadda faray intaanay ummaddaba farin isagaa sameeyey hawl kastoo ay qabanayeenna wuu kala qayb qaatay hadday dagaaltay wuu la galay intuu koofiyaddiisa qaatay dagaal iyo hubkiisa hadday god la qodayo tay wuu la qoday khandaqiyo wixii markii la samaynayey hadday gaajo tay wuu la gaajooday saxaabigii u yimi isagoo dhagax caloosha ku xidhay nebigu intuu cabarada caloosha ka qaaday ayuu tusiyey isagoo laba dhagax nebi maxamedna xidhaya gaajo daraaddeed ka warran madaxweynahagu hadduu laba dhagax soo xidho maadaan shan xidhanayn markaa dabcan waa tusaalu kuu noqdo gaajadu ku damqi maysa marka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam model buu u noqday wax kasta oo uu farayey masaajid baynu dhisanaynaa buu yidhi markuu madiine yimi jaajuurkay qaab waxii dhoobada iyo waxay gurayeen buu isna gurayey waa la gurayey isagoo madaxweynihii ummadda iyo rasuulkoodiiba idan haddaad rabto in dadka kaa dambeeya ay ku raacaan oo aad noqoto tusaale fiican nimankan gaaleed waxay ina leeyihiin practice-ka koowaad ee lagaa rabaa waa model dawey bay yidhaahdeen jidka adigu tusaale u noqo waxa labaad waxay yidhaahdeen waa inspire a shared vision dadka wajhada iyo meesha loo socdo wadaaga aragti midaysan yeesha ummadda hanuuniyo meeshaad u waddo ha kula fahmaan meeshaad u waddo ha kula fahmaan waxay dhahdeen mas'alada tani iyadana commitmentska iyagu qorteen laba commitment haddaad samaysa bay leeyihiin visionka waa yeelanaysaa waa envisioning the future iyo inaad mustaqbalka arki karto iyo enlisting others kuwa kale inaad liisgaraynayso ay ra'yiga kula wadaagayaan si kooban haddaynu u tilmaamno waxa weeyaan qof indheergarada noqo qof indheergarada intellectualkaynu sheegno ama indheergaradku waa maxay indheer ayuu garanayaa weeyaan qof in fog arki kara inta caamadu arkaysa ha arkin meel durugsan arag ka labaadna waa maxay waxa aad arkaysana dadku ha kula wadaagaan haddaad dadka qancin kari weydo oo aad noqon weydo qof waxay yidhahdaan tuuniska ugu fiicane uu adeegsado liidarku waxaa ka mida bay yidhahdaan alithaaba waltahdiid waliqnaac bay yidhahdaan abaalmarin iyo ciqaabid iyo qancin bay yidhaahdaan dee systems kastoo jira nidaam kastoo jira saddexda shay buu adeegsadaa gruubka si fiican u shaqeeya in la abaalmariyo ama ha la dhiijiyo ama wax la siiyo ama ha la dallacsiiyo ama in la abaalmariyo cida si fiican u shaqayn weydana maxay in iyana ciqaabteeda la siiyo la abaalmariyo iyo bay yidhaahdaan tuulka saddexaad ee uu adeegsada liidarku waxa weeyaan bay yidhaahdaan waa tuulka ah aliqnaac inaad dadka qancin kartid ninkii dheeraa iyo nimankii gaabnaa ee wada socday aan sheegayay weeyaane haddaad dee waxaad arkaysa dadka tusi kari weydo you can't lead markaa ma hoggaamin kartid broseska saddexaad bay yidhaha ama practice-ka saddexaad u baahan yahay liidarkaynu ka rabna waxa weeyaan challenge the process bay yidhahdaan challenge the process qof halkaa uun ku haynaya ha noqonin mudiiradu ama maamulayaashu barjadka iyo intan unbay iswaafajiyaan intaasay ku ekaysiyaan oo waa wadaan shaqada laakiin hoggaamiyuhu waa qof la rabo dadka inuu raro laakiin dadka inaad rartaa
mushkilaad tiro badan baa kaa hor imanaya challenge baad u baahantahay sidaa awgeed waxay yidhaahdaan broseska inaad challenge garayso ama tagyiir isbeddel inaad raadisaa laba shay bay u baahantahay bay dhahaan kow ka koowaad waa search for opportunities acabsan waxa kaa horeeya ka cabsan wixii aad ka timine ha ka murugoonin ha quusan weliga hays odhanin there's no way wax la yidhaahdaa ma jiro there is a way raadi fursadaha nololeed whatsoever bulshada ay ku sugantahay there is a way hogaamiyaasha dunida la yaqaano xataa kuwa maadiga ah meelaan waxba ka jirin bay wax ka dhaliyeen waddankan yare Hong Kong la yidhaahdo waa taqaaniin dunida dabadeedii ku yaalay marka loo eego bulsho iyo dhaqaale iyo wax walba dee dhulna waa 24 kilomitir maxaad u malaynaysaa waddan u baahday inuu ciidda soo dhoofsado ciidda guryaha lagu dhiso Malaysia ka qaadan jiray aduu qiyaas waddan ciidana soo dhoofsanaya muxuu haystay waddanka ciidda soo dhoofsanayay maanta wuxuu ka mid yahay wadannada dunida ugu dhaqaalaha sarreeya ku jira ugu horumarsan buu ku jira around 2,000 wax ku dhow oo technical schools buu leeyahay bay yidhaahdaan qiyaas adigu isku waddan yaroo intaa leeg nin qaa'ida 20 sannadood hogaamiyey oo cid walba dhaafay ra'iisul wasaarihiisu waxaan filayaa 5 madaxweyne ama 5 nin ee dunida ugu mushahar badan ee madax wax maamusho ka mid yahay waa waddan 24 kilometer square dhulku haystaa weeyaan waxay yidhaahdaan qaa'idku he should challenge waa inuu noqdaa qof nolosha challenge garaynaya qof isku dayaya inuu caqabaadka ka tallaabsado taa macnaheedu waxa weeyaan waa qof furas raadinaya ibxath can ilfuras nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam 13 sannadood bay quraysh iyo intii ku xeernay diidanay 15 qabiil buu isu soo bandhigay inay aqbaleen oo diiday markii dambe dhalinyaro ansaari aqbashay that chance fursadda qule uu helay ayuu dawladda islaamku ku sameeyay saxaabadiisii hijreeyay magaaladii u diray ducaad sii hagaajisa dawladda dhan ee islaamiga dunida gadiday one chance uu helay isagoo 15 chances waayay fursad waayay hal chance uu helay buu ka faa'iideeyay idan qaa'idku bay yidhaahdaan kow waa qof search for opportunities bay yidhaahdaan waa qof raadinaya furaska raadinaya ka labaadna waxay yidhaahdaan waa experiment and take the risk ha cabsan ee tijaabi oo riskiska qaado wax kastoo nolosha ka mida waxay yidhaahdaan cidda riskiga diidda yani dhibaatooyinka cidda ka baqataa horumarka ma gaadho xataa shirkadka dhaqaale shirkadka muqaamarada sameeya muqaamaro xisaabsan ayaa dhaqaaluhu kobcaan meel kastoo aan muqaamaro ka jirin profitku wan iyo meelahaas ku warwareega meelaha had iyo goor dagaaladu ka dhacaan iyo waxa ka dhacan waa riski midhan laakiin meelahaas waxa laga yaabaa 50% inay gaadho ama 100% inay gaadho profitku walidaalku waxa dhaca riskiga iyo profitku way wada socdaan Soomaalidu maxay ku maamaadaa barti yaqaan bari uma korodha bay yidhaahdaan waa yani waa niman challenge garaynaynin nolosha haddaad intaad taqaanin ku warwareegtid waanad hore u soconin maaha cayaaraha ay ku tilmaamaan aan laba cayaarood idiin sheego macnaheedu markaynu leenahay fursad raadi waxay yidhaahdaan guush waa laba shay oo la isku daro waa fursadda iyo diyaargarowga baa la yidhaahdaa hadday fursaduhu ku hor yaalliin laakiin adigu aanad diyaar ahayn hore u socon maysid haddaad adigu diyaartay laakiin fursadda aad weydana socon maysid guushi bay yidhahdaan waa labadaasoo wada kulma waa inaad fursaddiina aad la kulantay adiguna aad diyaar u tahay oo qof muqaamaro galaya oo ka faa'iidaynaya inaad tahay bay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan waa fursad iyo muqaamaradu jarska xornimo maaha taan sheegayna yani ninka jaska cayaara muxuu sameeyaa soo jaska ma taqaaniin shatranjka cayaartan la yidhaahdo jasku waa in go'an buu qof waliba marka hore deginshiyo lama degaya sida shaxdeenoo kale shaxdeena way ka horeysaa jaska oo iyadana waa godkana waa la degaa laakiin kan marka hore degintuuku wuu qoran yahay in go'an baa askartaadiya waxaa ku yaallay guurista laakiin la guurayo qofku wuxuu ka fakeraa taa haddaad guurto maxaa jawaabtu noqos maxaa soo baxaya
markaasaa waxaa kuu soo baxaya intaas oo probability ixtimaalaad tiro badan askariga haddaad guurto kaasuu guuri karaa kaasuu guuri karaa kaasuu guuri karaa kaasuu guuri karaa alternatives tiro badan ixtimaalaad markaasaa waxaad isweydiinaysaa kaa hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kaa kale hadduu guuro maxaa ka dhalan jawaabtaasaad bixin kan hadduu guuro maxaa ka dhalan idan waxa jaanis jiroo dhan baad xisaabinaysaa marka aad xisaabiso ayaad dhiiranaysaa inaad guurto laakiin garantii maaha inaad guulaysan doonto socankaa maaha in lagaa badiya waa suurtagal idan liidarka dhabta ahi waa ninkaa cayaaraya maxay jas cayaaraya laakiin ma aha nin cayaaraya laadhuuda maxaa la sameeyaa waad ka quluxquluxsiinaysaa una wixii ka soo booda hadday lixi kuu soo baxdana lixun baad guuri haddii laba ka soo baxdana maxay labaad guuri that means maskaxda maad isticmaalin waa ku daybaad waa muqaamir marka muqaamaro ma rabno ee waxaanu rabnaa qof garanaya furaska baadi doonaya laakiin fursaddu markuu helo aanay dhaafaynin tijaabinaya waxay idhaahdaan qodobka afraad waxa weeyaan bay idhahdeen enable others to act dadka kale u oggolow inay iyana shaqada qabtaan majaalka bannee madaxda iyo liidariska badh baa jecel magaca iyo maamuuska iyo in keligii jiriyow loo qaado markaad in cidiba ka ag muuqato ma jecla good leader maaha kaas liidarka dhabtii bay idhaahdaan waa liidarka dadka soo saara waa ninka marka uu dhinto ama booska banneeyo ka tegey rag halkii intay qori isu dhiib weeyaan ile noloshiiyo qorigu intay qaadaan intuu la orday ka badan la carari kara John Maxwell leveladiisii afartaha markuu tirinayay levelka koowaad wuxuu odhanaya waa position waa ninkii uu kursiga iska fuulay ee dadkuna ku qasbanay inuu raaco levelka labaad waxa uu ku tilmaamay inuu yahay permission waa nin dadka nooc min cilaaqa la sameeyey oo dabeetana ay wax u ogolaadeen levelka saddexaad wuxuu ku tilmaamaa production waa qof midho dhaliyey oo dadku ay leeyihiin waa ninkii waxaa qabto midhahan lagu daba socdo dadkana taqdiiri levelka afraad bay yidhaahdaan ayuu ku tilmaamayaa waa nin dadkii la socday soo saaray oo waxay leeyihiin recruitingka doorashada marka hore u hagaajiyey oo si fiican buu wax u doortay positioningkana wuu hagaajiyey qofka iyo boosku dhigaya wuu hagaajiyey equipmentkana wuu hagaajiyey bay leeyihiin wuxuu qofku u baahnaa inuu shaqada ku qabtana wuu siiyey dabeetana wuxuu ogolaaday wuu delegate gareeyey shaqadii wuxuu ogolaaday inuu qof u shaqeeyo haddaad qofkii ku habboonaa iyo meeshii ku habboonaa iyo wuxuu qaban lahaa wuxuu wax ku qaban lahaa aad qofka siiso dabeetana tidhaahdid go ahead soco waxay leeyihiin waa martabada afraad ee qaa'idka waxay idhaahdaan martabadiisa shanaad isagoo ka dambaysa waxa weeyaan waa qof u taagan dee magacii helay raggu soo saaray helay waa martabada shan labadan ba isku dar waxay dhahaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii wuxuu soo saaray reer baadiye nimana buu ka wada dhigay qaada nebigu markuu geeriyooday waxaa ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabo halyeeya wada ah oo dunida dawakiyey furtay dunidoo dhan fishankii nebi maxamed ee ahaa diintani waxay gaadhi doontaa guri kastoo dunida ku yaalla ama bicizi casiisin oo bidulli daliilin bay ku gaadhi doontaa fishankaasuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa fishanaa dadkan inuu janno geeyo adduunkana inuu meel kasta diinta tan gaadhsiiyo saxaabadii ka dambaysay qaada bay noqdeen intay qaadeen aragtidaasi meel kasta geeyey yacni waxay noqdeen dad intuu tababaray uu equipment ka dhigay majaalkana uu u baneeyey qaada noqday marka saxaabo aan taariikhdii hore carbeed lagu aqoon ribciy ibnu caamir iyo mugiirata ibnu shucb iyo yaqaan waa nimankii rustam ka wareeriyey dowladdii beershi iyo raggii hogaaminayey raggii ka wareeriyey waa nimankaasi waa qaada idan waa level bay yidhaahdaan levelada ugu dambeeya ee qaa'idku uu gaadhay ka mid tahay oo waa maxay enable others to act ha noqonin qof anaaniyo leh wax walba aniga ee waxaad garataa dadkan ku garab socda inaad tababartidoo hore u sii daysid waxay isagu yidhaahdaa
labada commitment haddaad la timaado sidan ay dhacayso waa foster the collaboration iyo strength others buu yidhaahdaa kuwa kale xooji wax wada qabadkana biiri waxay yidhaahdaan mumaarasada saddexaad shanaad miyaaba tani waa tii nami tacaawuna qawi laakhariin mumaarasada ugu dambaysa ee shanaad waa encourage the heart bay yidhahdaan shajic alqalb aw altaqdiir waxaweyaan dadku markaad equip garaysa ay shaqada qabtaan ictiraaf wixii ay qabteen maamuusna wixii ay qabteen ictiraaf recognize the contribution bay yidhahdaan and celebrate the values and victories dadku markay shaqeeyaan shaqada ay qabtaan marka hore ictiraaf you done well shaqo fiican baad qabatay marka labaadna celebrate garee abaalmariyo ammaan oo abaalmarinta sii walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu tilmaamaya qofba wuxuu ku fiican yahay أمين أمتي أبا عبيدة بن الجراح أرحم أمتي بأمتي أبي بكر النبي الشيء يقول نول سيدا يكليهين لما كان يقول هذا وحي كوجا بجبينه يعني وحي هذا حنشطة يسكو هاي الصبي ده دم برشة يه جاميه والله بيده كالقعد جعلان شيء براكتسس كامركو سماية بيده ده تريتس كانوا صوت الماما ما الصفات كانوا صوت المامنين وياشو قائدكو انت مركو ياشو رقمدانا وكو نقمو وحنا شبيلين كالقعل شعب كي مدحضو استعلادان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام حليه ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم ما يدين شيء قابونا بيقولوا حلك مدح دينا خيار أمرائكم حلك مدح دينا يكوا وشر بدن ما يدين شيء قابونا بيقولوا هذا اللي وحنا بيقولوا حلك مدحدو وحويان كوا إذن أتشعشين إيانا إذن شعل إذن أود عيسان إيانا إذن دعية ما هم مدحدان كو قصب تضدك وداد كان خطبة آخرين أيين وماشى وسوى دعية اللهم أصلح ولاة أمورنا هلك كصبرا وولاة أمور قصب لو دعينا لكن وحال الربا إن النيادة كتماطو إنه كسبضين كان مدحدا إن لو دعية إنه كسبضين دعادو محما حتى عدو شربدينا ترادا يقولوا وراج إلا أنت كان له وراك سناري عدو وراك سنادي لكن أصليا وحاول نبغى تلماميا وقف إذنا أتشعشين سنا إذن شعل إذنا أود عيسان سنا إذن دعية ما يدين شيء قابو نبغى إذا مدح دينك هو شرط بضلنا هو قامياش هو كشرط بضلنا وقوة إذنا أخبارتاني أنا إذن صاحب عره سنا عبيس كمركو قالوا عليه وضد باص مومد لوضع كرابات مود يسابوا لي هبار بقول عاي يانا مركي حق جوجان waxay leeyihiin man madax baad mood sawaan kaar qabad wixii meesha yaa leelatay waxba kama tagin idan iyana xantiisa habeen iyo maalin ma wada isna xantoodu wada waa kuwa sharta badan mun nabiga calayhi salaatu wasalaam idan waxaan isweydiin saash wax weeyaan waa kuwa maqaayidku waxaynu nidhi jawaab waxay noogu filan 3 milyan oo bini aadam wixii la weydiiyay la yidhi yaa qaa'ida qaa'idku waxa weeyaan bayn leena waa ku ammaano leh oo kafaa leh oo mustaqbalka arki kara oo maxay waxay soo taxeen leh waxaynu nidhi qaa'idku waa qofka sifaadkaana leh credibility lena leh kalsooni lagu qabo kalsoonidana ay abuurto inuu qof run sheegay yahay طاعد يا أماننا لو أن وحلو دي بيعونين وحن الواقف براكتس سمية دقن له شنقة شنطة شيء كحرا طبعا كوميتمنت انت سيني من كان ينسو بيجين انت يسوق بيجين عموما هدين القرآن كي حديث كو أركنا كبار وكو أركينا إذا وحنا أركينا تجربة دي بني آدم كو سمية بارتان كو سمية iyo wixii diintu ina fartay ee mas'aladan ku saabsanay almost inay isku dhadhow yihiin waa laga yaabaa inaynu ku kala gedisannahay
sidee baa loo samayn karaa daacadnimada tan iyo waxa kale innaga factorka ugu weyna sameeya waa maxay waa alle iyo aakhira inuu ka cabsado de aliimaanu billaahi wa bilyawmi alaakhir ayaa factorka ugu weyne waxa ka abuura si kastaba ha noqotay ayuha alxiba haddaad tahay nin guri hogaamiya afar carruur iyo hooyadood haddaad hoggaanka u hayso intan baa lagaa rabaa inaad mustaqbalkoodana arkayso daacadna tahay shaqadana aad qaban kartid haddaad shirkad iyo urur hoggaamiso haddaad iskuul iyo arday hoggaamiso haddaad hal fasal hoggaamiso haddaad imaam masaajid iyo inta ku tukato hoggaaminaya tahay haddaad suldaan iyo caaqil tahay dad hoggaaminaya haddaad tahay siyaasi ummadeed oo ummad raba inuu hoggaamiyo sifaadkaa iska baadi doono haddaad u dhalatayna sii soofayso dhaqamadaa laga rabo hoggaanku inuu yeeshana yeelo markaasaad helaysaa dadka kalsoonidooda iyo ducadooda iyo taageeradooda iyo ixtiraamkoodaba markaasaad helaysaa idinna waa inaynu ku talagallaa haddaynu kuwii rabbi uu ka dhigay baadidoonka ku weyno ilaan dadkan waa la baadi doonaa akademiyaad bay dunidu leeyihiin bulsho kasta raadceeya dadkooda ah leadership leh sifaadkaa leh dabeetana way sii tababaraana waxa loo tababaraa qaadada mustaqbalka inay ama waa inaynu raadinaa ama waa inaynu tababarnaa innagu labadiiba intaynu ka gaabinnay ayaynu rabnaa inuu samadun ka soo dhaco ilaahay dee haddaynu baryada badina wayna siin karaa laakiin aan ku darra maxay ficilkaan ku darro sala allahu calaa muxammadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin